haatan waxaan joognaa stuudiyaha Somali Stars oo lagu qabto tartan aqooneedka bisha barkeysan bahda Somali Stars haatan waxaan la joogaa guddigii tartanka Maxamed Ruush Somali Stars iyo Ashraf Blue Blood Somali Stars iyo Kaafi Cadde Somali Stars dhammaantiin waxaan ku soo dhaweynayaa salaan qaas ah waxaan idin weydiin doonaa su'aalo yar oo ku saabsan tartanka su'aasha ugu horeysa waxaan weydiinayaa Maxamed Ruush Somali Stars sidaan ognahay Maxamed tartan aqooneedkii ayaa socda oo dad badan ayaa ka soo qayb galay qaarna wili waa ay rajeynayaan inay ka qayb galaan tartanka tartankii wuxuu bilaabay goor hore ilaa iyo haatan tartanka maxaa idin qabsoomay oo aad sameyseen oo horumar ah iyo nooga sheekay qaabka uu tartanka u dhacayo adigoo maasan faleed fadal waa maasan tahay saaxiibkayga Abuukar Imre Jacayl saaxiib horta runtii barnaamijka intuu noo bilowday ilaa hadda wuxuu socdaa 8 maalmood ku dhawaad sidaan la socono tartankana waxa uu aad iyo aad ay u xiiso badan yahay ilaa hadda listiga waxaad moodaa in dad badan weli ay soo codsanayaan in tartanka lagu daro laakiin aan time loonin waxyaabaha noo qabsoon waxaa kamid ah in yani dad badan ay soo baxeen dad badanna ay doonida raaceen oo ay maanshoodeen sida ay dadka qaar u yaqaanaan marka hadda waxaan wadnaa in sidaan ku dadaalnayn inaan tartanka qaybtiisa koowaad aan soo afjarno marka waxaan noo qabsoon waxaa kaloo kamid ah in yani aan isku keenay dhalinyaro badan oo ku kala firsan daafaha dunida sida wadankeena Soomaaliya ilaa iyo cirifka waqooyi ee America anagoo haddana u sameynay tartan aqooneed ay dadka kale la mid ah aysan u sameynin gruubyada ka dhisan Facebook oo aan anaga kaga horeeyna qaabkaas casriga ah hadda aan keenay marka waad la socotaa adbo waa indhaha kama marno waxyaabo badan oo ku soo kordhin doona hadduu alimo oo intaas ka sii faahfaahsan okay waa mahadsan tahay Maxamed sida faahfaahsan aad su'aashaas nooga bixisay haddii aan u gudbo saaxiibkeen Kaafi Cadde Kaafi waxaan la soconaa barnaamijka tartanka in la balan qaaday in macnaha qofkii kaalinta koowaad galo iyo kaalinta labaad la sii doono hadiyado ama abaalmarino yaa maalgelinayo abaalmarintaas la bixinayo adigoo maasan faleeta fadal Kaafi aad iyo aad u mahadsantahay saaxiibkay Abuukar Imre Jacayl waxa maalgelinayo shabakada sheekooyinka iyo shukaansiga nasiib iyo bahda Somali Star oo idil meel walba ay joogto okay su'aashaas waanu garanay haddii aan u gudbo saaxiibkeen Ashraf Blue Blood Ashraf isku aadka sidaan ognahay isku aadka tartanka waa la diyaariyay oo waxaa la soo saaray isku aadkii ugu horeeyay kadib waxaa dhacday in dad far badan oo kamid ah tartamayaasha qaarkood ay soo diiwaangeliyeen oo ay rabaan inay tartanka qayb galaan dadkaasi maxaad ugu baaqi lahayd ama aad u sheegi lahayd ma inay tartanka sugaan oo ay ka qayb gali doonaan iyo inay tartanka iska iloobaan oo tartanka uu full yahay waa maasan tahay walaal Abuukar Abdullaahi Imre Jacayl waxaan salaamayaa guddiga kale Ruush iyo Kaafi waa jirta dhalinyaro badan oo soo diiwaan gelisay kadib markii aan soo gudbinay isku aadkii hore ayagana hadduu ilaa yiraahdo waxaan wadnaa inaan soo gudbino isku aadkooda dambe maadaama ay kamid yihiin bahda kamid ah ignore lama siin doono qof walba uu soo diiwaan gelin doonaa sidii aan horey u sheegnay marka isdiiwaan gelintu way socon doontaa ilaa wareega koowaad uu ka dhamaado tartamayaashii soo diiwaan geliyay ayagana isku aadkooda waan soo wadnaa waan soo gudbinaynaa kuwa isdiiwaan geliyayna oo hadda mar dhow la wado inuu tartanka ku soo aado isku aadkooda waxaan leeyahay qof walba waqtiga ha ilaaliyo wayna mahadsan yihiin intii hadda guuleysatay waxaan leeyahay hambalyo intii laga bediyeyna ayagana waxaan u rajeynayaa guul iyo sanadka dambe hadduu ilaahay yiraahdo waad mahadsan tahay saaxiib Ashraf haddii aan
usoo laabto saaxiibkeen ruush sidaanu ognahay dad badan ayaa isa soo diiwaan geliyey oo barnaamijka ka qayb galaya dadka taanka ka dhacay ee aan barnaamijka kasoo qayb gelin ma ayagana dib ayaa barnaamijka loogu soo celinayaa mise sidii taanka ugu dhacay ayay barnaamijka uga hareen waa mahadsan tahay saaxiib indha jecel horta runtii waa su-aal aada u muhiima oo isweydiinteeda leh dadkaad sheegaysid waxay kala joogaan wadamo oo ka kala firsan caalamka sidaas laajligeeda waxaan ku dadaalaynaa inaan u sameyno time oo ku filan oo masalan adiga time oo ayaga aysan afurka ku jirin maadaama dadka qaar ay duul u tahay dadna afur ay ku jiraan mararka qaar marka haddii qofka la waayo ama kas uu isku jaro ama marmarsiyo kale uu keeno taas waxaa go-aan aan ku qaadanay in qofkaas 4-5 la siiyo sida dadka ay u yaqaanaan waayo waxaa ka badan dhalinyaro badan oo hadda soo codsaday oo lagu bedeli karo booskiisa oo mar walba redio ah inay barnaamijka timekooda tixgeliyaan sidoodana ku imaadaan waan garanay su-aashaas su-aasha ugu dambeysa aan idin weydiinayo guddiga tartan aqooneedka bisha barakeysan rabadaan ee bahda Somali Stars waxay tahay haddii aan ku bilaabo kaafi saaxiib maxaa ugu baaqaysaan tartamayaasha kasoo qaybgalaya tartanka fikradaada tartanka ku saabsan iyo wixii aad u jeedin lahayd tartamayaasha adigoo mahadsan faleefatan kaafi aad u mahadsantahay saaxiibkii Abuukar Indha Jecel tartamayaasha waxaan ugu baaqayaa in mar walba ay dadaalaan nasiibkoodana ay sameystaan waxaan waa nasiib waxaan kala ugu baaqayaa inay sameeyaan tixgelin wanaagsan ay u tixgelinayaan guddiga okay waa mahadsantahay haddii Ashraf adigana fikradaada aad sii raacsatid maxaa ugu baaqaysaa tartamayaasha barnaamijka kasoo qaybgalaya والله tartamayaasha aad ay u mahadsan yihiin mid walbana dadaal ayaan ugu baaqayaa waan u mahad celinayaa mid walba kuwii badiyay iyo kuwii laga badiyay waan u mahad celinayaa waxaan leeyahay dadaalkiina sii wada kuwii laga badiyay aad ay u mahadsan yihiin wayna ku qanceen cadaaladda meesha ka dhacday kuwa kalena saar ayaan rajeyn doonaa hadduu ilaah yiraahdo okay ruush saaxiib adigana su-aashaada ugu dambeysa maxaa ugu baaqi lahayd tartamayaasha kasoo qaybgalaya barnaamijka ooraahdaada waa mahadsantahay saaxiibkii Indo mar boqolaad waxaan ugu baaqi lahaa tartamayaasha in ay timeka tixgeliyaan oo ay timeka oo guddiga usoo go'aamiyey ay isu keenaan waayo waxaa jira dad badan oo tartanka jecel oo aan weli fursad loo haynin waayo booska ugu buuxsamay xitaa waxaan ka cudur daaranahay qaar ka tirsan Somali Stars oo tartanka soo codsaday oo aan u saamaxin waayo full time waayo marka waxaan ugu baaqi lahaa inay timeka tixgeliyaan guddigana awaamirtooda ay u hoggaansamaan waana mahadsantihiin okay dhammaantiin waad mahadsantihiin sida qiimaha leh ee aad ugu soo qayb gasheen barnaamijka tartanka iyo sida sharafta leh aad usoo diyaariseen haddii aan waxyar xasuusiyo dhageystayaasheena wareegii koowaad ee tartanka oo weli noo socda qaybtii ugu horeysay ama tartamayaashii kasoo qayb galay ee haatan u gudbay wareeg labaad qaar kamid ah haddaan idin sheego tartankii ugu horeeyay waxaa tartamay Qadar Khalbi iyo Shoole Cadde waxaa soo baxay Qadar tartankii ku xigay waxaa tartamay Zaki Yare Ziko iyo Huda waxaa soo baxday Huda tartankii saddexaad waxaa tartamay Xasan Cadde iyo Arka halkaas waxaa ku soo baxay Arka Zayd Khilaafa iyo Said Barre ayaa tartamay Zayd Khilaafa ayaa meesha ku soo baxay sidoo kale tartankii ugu dambeeyay ee haatan dhaca wuxuu ahaa Catoosh iyo Yaanka Qays halkaasna waxaa ku soo baxay Catoosh dhammaan aad ayay u mahadsan yihiin tartankiina waa uu inoo socdaa insha Allah tartamayaasha kale ee tartami doona ee barnaamijka ayagana kasoo qayb gali doona kulligood waxaan u rajeynaynaa guul wacan inta ka sokeysa waxaan idinku dhaafeynaa khayr iyo caafimaad. Assalaamu calaykum.